madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo warramay wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxa uu sheegay in dawladda Imaaraadku ay ciidamo isugu jira military iyo booliis ay u tababari doonto Soomaaliland. Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo boqosho ku jooga wadanka Imaaraadka Carabta isla markaasna kulamo la leh madaxda ugu sareysa wadankaasi ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in Imaaraadka Carabtu uu tababarayo Soomaaliland ciidamo isugu jira military iyo booliis. heshiiskan ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu rajeynayo 2 bilood gudahood lagu soo dhameeyo si hawsha loo bilaabo. dhinaca kale madaxweyne Biixi waxa uu sheegay saldhigga military ee Imaaraadka Carabtu uu ka dhisanayo magaalada Berbera la rajeynayo la soo gabagabeeyo dhismihiisa sanadkan gudihiisa isagoo ka qayb qaadanaya marka uu dhamaado kobaca dhaqaalaha iyo ammaanka Soomaaliland gaar ahaan ka hortagga falalka kooxaha argagixisada sida uu sheegay madaxweynuhu. madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale waxa uu kaftan ama khalad siyaasadeed ku tilmaamay go'aankii baarlamaanka Soomaaliya uu ku laalay heshiisyada dhinaca maalgashiga ee shirkadda DP World waxana uu sheegay inaan go'aankaasi wax saameyn aanu ku yeelan karin heshiiska dhinaca maalgashiga ee shirkadda DP World ay ku maalgelinayso dekedda magaalada Berbera. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa intaasi ku daray inuu rajeynayo dawladda Imaaraadka Carabtu ay lacag adag dhigto banka dhexe ee Soomaaliland inkastoo uu sheegay in arrinkaasi wili labada dhinac aanay ku heshiinin. wakaalada wararka ee Reuters waxa kale oo ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo joogay markii wareysiga la yeelanayay madaxweyne Biixi uu diiday inuu sheego tirada saxda ah ee ciidamada Imaaraadka Carabta ee la keenayo saldhigga magaalada Berbera marka uu dhamaado.